karaa hadday hay-ad tahay hadday dowlad tahay hadday dadweyne tahay macnaha baahidanada waa la arkaa bannaankaasaa naallaa waxaa noo hoy iyo waa calalo boorkaasaa naallaa wax cuntoorasana wax hoy ah waxaan idiin sheegay hadda wax qabadkii bini'aad noloshiisii waxaanu ka haysanaa hal suuliya 58 baa annagoo ah qoys ah iyo hal qasabada intaasaa wax ka haysan noloshii bini'aadan lahaa ee nooc kasta garanaysaan dii waa la garanay noloshii bini'aadan ku noolanay sida ahayd hadda marka waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha dadka bini'aadanka ah dibad iyo gudo dawlad hay-ad dadka macnaha dadweynaha wixii wax qabadaya macnaha wax noo qaban karaa rabbi wax qabadkii iyo kaalmaha leh in la soo gaaro noo soo gudbaan rajeeyaan ka codsanayna aniga iyo ilmahayga yar hadda afarbeen baan u mulanahay wax aqalkayga yaalo oo dib ugu noqdo oo dhaqaala ama caana ama cuud ah hadii aan dhimiga iska ilaaliyo haaf waxa yaala bariisa oo wixii lagu darayay aan lahayn eegana dadka walaalahana ee awalba aanu nimid waxna siinayay baan kabta u fadhiya haday guri tahay iyagu ma kabta u fadhiya haday dhaqaale kala tahay iyagu ma kabta u fadhiya dadka walaalahana ee muslimiinta nolosha anagu 6 qof 5 qof aan hadda waxa ka dhaqdhaqaaqa meejan xaradan jooga 5 qof markaanu tagno waxa laga yaabaa 2-3 maalmood 300 400 inaanu soo helo intaasanu adiyaaleeyo qolaba ka darantahay aanu intaasina aanu qaybinaa qoladee daran qoladaas daran markii la yiraahdo 5 kun baan ugu qaybinaa nolosha saasaanu maaraynaa hadii wax raashin la siistay iyo waxa mada heli karo oo awoodana raba ma aha marka saas anagu waxaan rabnaa hay'adaha caalamiga dawladda Puntland muddo waxaanu ka codsanaa iyo adiyaaleeyo muslimiinta adduunka nooyay hay'adaha samafalka inay dadkaas il raxmadeed ku soo dayaan baahidii halkii bay taagan tahay guriga ma haysano board baan joognaa dalka inaan ka mid noqono oo dadka walaalaha aan u nimid ee Puntland kan wixii dhaqaale loo talagalay ee loo islaamku bixiyeen loo ururiyeen wali waxa kama hayno sadaqadana waxa la rabaa in dadka wixii loo hayana wax loo qabto wixii la hayana wax loo soo qabto wixii kale loo raadiyo loo kulmiyo islaamka loo taana waan ku dareynaa wadartaan dadka meesha joogan dad qof xanuunsan oo waxa soo loo wasiraa